somalilan ictiraaf ma helin 32 sano haddana ma helayso. israa'iil dagaalay gashay, adduunyay gashay, khataray darantay. khatarteeda inay ka jawaabta ayay isku dayday. waxay u aragtay dhulka soomaaliya qayb ka mid ah inuu khataraheeda uu yaraynayo. waa fiirisay. annaga dowladda soomaaliya waana soo approach garaysay israa'iil dhowr maro hore. cadaawad idinma qabna, laakiin wax gaaroon hadda ah cilaaqaad aan idinla leenahay ma jiro. waqtigaa cilaaqaad had idinla yeelanaya lama gaarin. hala gaaro waqtigeeda meeshaasaan ku kala joognay. waana dhowr mar ina soo approach garaya weliba oo idin weydiisanayeen inaan cilaaqaad yeelano. annagana waan aqoonsanayno, ma dhex marayno, ma aqoonsanayno ayaga, laakiin cilaaqaad aan yeelano. wadamo badan afrikaanaan dabcan cilaaqaad la leh, laakiin annaga waddan kastaahe mabaadidiisa iyo aragtidiisa uu leeyahay. annaga arrimo oo mabda ah ayaan israa'iil aan isaga soo horjeednay. qayb ka mida ay caqiide iyo diin tahay, qayb ka mida ay bini aadamnimo, humanitarian iyo human rights ay tahay, yaan isaga soo horjeednaa, isu diidanay. nimankii markaa way fiiriyaan, waxay yidhaahdeen war nimanaaba meeshaan joogay maan marada unuunoo dhaano. sidaasay horta ee aqoonsi ku yimid. dhibaato aad iyo aad u weynaana ka soo socoto oo maanta hadda already qaarkeed infafaaleeda uu soo muuqdo. soomaaliya dalka la yidhaaha in dagaal ayna shaqo ku lahayn, ku jirin, maslaxadii uga jirin, dan siyaasadeeda uga dhex jirta aanay jirin, in lala garo, in lugaha lala garo. dadaa cadow u arko ay rabtaa soomaaliya meeshii loogu tegaysanayay cadowgaas ay u aragta israa'iil inay noqoto. dadkaasina dabcan waa soo jawaabayaan. waa waxa maanta wadamo badan oo khaliijka ah haysta. waa marka annaga proxy warkaas ma geli karno. marka ictiraafkaasi ictiraaf jirana ma aha, waana aad iyo aad u khaldan yahay, u qalloocan yahay. somalilan ictiraaf ma helin 32 sano haddana ma helayso. kanna ictiraaf maaha, taraab waaye. waa meel yaroo daban yaroo nimankan ay dhigteen oo in loogu dhaca ay rabto waa